السلام عليكم أصحابتي soo noqosho wanaagsan halkan waxaan galaynaa cashar cusub kaas oo loo yaqaano purchase order waxaa soo galaynay yacni kambanigeena settingkiisa configurationkiisa balance sheetkiisa ama xisaabta koowaad waa fadhiisanay hadda waxaan galaynaa inaan wax soo iibsano applicationka soo iibsashada loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa purchase app inoodu ayaan ka gelaynaa halkan waa maxay purchase ama wax soo iibsasho marka kambaniga aan ka hadlayna wuxuu ahaa merchandising company kambani alaab soo iibsada siiyana iibiya marka two main pointskiisa waxaa waaye inuu wax soo iibiyo iyo inuu wax sii iibiyo oo selling so applicationka ugu horeeya oo wax soo iibsashada waxaa loo yaqaanaa purchase app so purchase app inuu dhow applicationkan waxa uu kaa caawinaya inuu kuu manage gareeyo kambanigaada dhammaan activitieska oo wax soo gadashada ah yacni haddii ahaan lahayd inaad alaab aad soo iibsatid inaad dalab oo badeeca aad samaysid inaad office supplement aad samaysid vendorkaada alaabtii aad ka dalbatay inta uu kugu leeyahay inaad manage garaysid tracking purchase transactionadii inta aad soo gadatay inaad track garaysid aad dib u raaci kartid oo yacni orderkii qaldan aad sixi kartid ayuu kaa caawinaya applicationkan so markii oo la joogo odowga purchase appka laba qaabaa loo sameeyaa purchaseska ama wax soo iibsashada midda koowaad waa request for quotation ama RFQ midda labaadna waxaa loo yaqaanaa purchase order marka waxay kala yihiin purchase order waxaa waaye inaad alaab dalbatid then alaabtii qofka aad u dirtid boonadii then alaabtii uu ku keeno request for quotation waxay tahay inaadan dalab alaabtii aadan ka hormarinin oo aad hore kasoo iibsatid micnaheeda ayadoona order uusan jirin so waa maxay request for quotation asa hadda noo sheegayo waa documenti loo diro vendorka ayadoo laga codsanayo product priceka alaabta badeecadeeda inuu sheego quantity-ga uu hayo iyo informationka iyo qaabka uu soo diri karo iyo terms condition hadday jiraan halka purchase orderka uu yahay official order send inaa qofka si saxa uu dalbado vendorka uu uga dalbado after quotation is approved markii quotationka la approve garay muxuu ka dalbanaa product detailka kow badeecadan faahfaahinteeda quantity-ga priceka deliveryga iyo paymentiga lacagta qaabka uu bixinayo hadday deyn tahay iyo hadduu wada bixinayo so example ahaan anaga hadda laba tusaale soo qaadanayna waxaan rabnaa inaan kasoo gadano beder 5 xabo oo laptop midkiiba kostigiisa uu yahay $350 so $350 ayaa waxa ku dhufataa 5 waxay isku noqonay 1750 so actionkan waxaa yacni waxaa lagu qabanaa as a purchase order ahaan dalabaa dirsanaynaa dalabkaasna ma saameyn doono ogow tribalansigana iyo akoomadeena ilaa aan yacni validation aan ku sameyno oo approve aan garayno requestiga ama RFQ-ga intaan tagno ilaa aan soo approve garayno purchase orderkaas yacni mana saameyn doono kan kalena waxay tahay second one waxa waaye inaan soo gadano camera Canon 5 xabo ah anagoonaan dirsan request purchase order anagoona sameynin then request yaa sameynaynaa isla markiiba waa daleecaynaa biilka ayadoona order ama qofkii fariin vendorkii waxba aan loo tirin so asla sameyno marka so waxaa imaataa akoonkeeni oo akoontigaada odowga imaw then waxaa imaataa purchase order so meeshan qaybta koowaad oo kusoo bixaysa waa request for quotation waaye adoonan yacni order dalbanin hore inaa alaab ka samaysid so ma rabno anaga waxaa rabnaa midda koowaad order inaan sameyno saa order u sameyno waxaa tegaynaa purchase order order aad dalbanayna order aad dirsanayna dalab ayaan dirsanayna so new day vendorka magaciisa meeshaan ku qor waxaa loo yaqaanaa Beder Electronics productga meeshaan ku qor product nameka waxaa waa HP laptop core i7 meeshaan waxaa soo gelisaa quantity-ga waxaa waaye 5 xabo unit price-kana 350 waa saas ku dhufan doono 1700 iyo isku noqon doonaan 1750 isku noqon doonaan so waxaa leenahay meeshaan confirm orderkaas waa dalbanay oo wuxuu noo soo galaa meeshaan RFQ-ga ama request for quotation meeshaan haddaad soo tagtid request for quotation waxaa arkaynaa inuu yahay meeshaan purchased order inaad dalbanay orderkeeni oo la diray so waxaa tagtaa meeshaan purchase order istag
So hadda waxaan sameynay order oo keliya meeshaas hadda waxa ku qoran nothing to bill wax la dalacaaya ma jiraan. So waxaa ogaataa markaad tegtid meeshan oo accounting app-ka oo trial balance-ga aad tagtid, meeshaan markaad fiirisid trial balance-geena wuxuu ahaay sidii aan uga tagnay sidii hore. 131,000 wax cusub oo soo galaya ma jiraan. Ilaa bilka la dalaco oo order-kii yacni confirm la dhaho oo waa helna la dhaho. Si saas loo dhaho waxaa tagtaa orders tag, purchase orders ku dhufo, bilkan tag, waxaa dhahdaa alaabtii waan helnay. Alaabtii waan helnay markaan dhahno waxaa laleeyahay hubi 5taa xabo aad dalbatay demand-ga 5taa xabo then validate aa leenahay oo warehouse in waa alaabta bakhaarka way soo gashay alaabtan. Alaabtan bakhaarka way soo gashay laakiin bilkeedii lama dalacin. So see ku ogaanaysaa saas waxaad tagtaa purchase order meesha soo waxaa ujeedaa inay tahay waiting bill in la dalacay rabtaa oo lacagtii ama la baxsho ama ay deyn noqoto. Waa kana 5 xabaa dalbaday weli wax lama dalacin. So si wax loo dalaco hadda meeshan way saameynay maxaa la yiraahdaa bil lama dalacin weli laakiin inventory-ga alaabtan way noo imaatay. So si bilka loo dalaco waxaa sameysaa purchase order soo gal meeshan jegta saar waxaa dhahdaa create bill. Bilka dalac so si aad bilka u dalacdeed meeshan date-ka dooro, taariikhda dooro waxaa dhahdaa confirm. Hadda lacagtaas waa la dalacay. Haddii aad bixinaysid waxaa leedahay pay, haddii deyn ay tahana meeshaan uga haray. Hadda marka haddaad soo ogaatid meeshan trial balance-gan wuu isbedeli doonaa. Inventory-ga waxbaa ku darsoomi doono oo waxa soo gadanay wuu badan doonaa. Account payable-kana wuu badan doonaa. Sababtoo tahay alaab ayaa deyn ku soo gadanay 1,700 ayaa deyn ku soo gadanay waa tana. Inventory-ga account payable waxaa ku soo darsoontay 1,750 meeshan waxay ahayd hadda 131 hadda 133 kun ay tahay. Inventory-geena aaway inventory-geena waa kana. Inventory-geenana hadda wuu batay oo 6,000 oo hadda waxa uu noqday 8,250. Dhacdada labaad aan sameynayna waxaa loo yaqaanaa request for quotation. Anagoona purchase dhihin oo order aan dalbanin inaan yacni hore kaga dalban karno. Meeshan ayadoo meeshan joogo request laba waa u dalban kartaa inaa inta dhuftid oo request for quotation aad dhahdid iyo inaa adoo meeshan joogo new aad dhahdid. Labada mid waaye. Waxaa ka soo gadanaynaa alaabteena Softtech Electronics. Waxaana ka soo gadanaynaa kaamiro. Camera Canon 5 xabo. 5 xabo marka waxaa waaye 5 xabo oo lagu dhuftay 490 waxay noqonaysaa 2,495. So waxaa leenahay confirm aa leenahay. Then haddaan yacni meeshan uga harno wax dhacayo transaction ma dhacayaan. So marka waxaa leenahay receive alaabta waa helnay. Waxaa waaye validate hubi alaabtii way soo gashay warehouse in waaye. Haddii inventory-ga uu kaa halaabo waxaa dhihi kartaa return aa dhihi kartaa warehouse out waaye waa ka saaraysaa. Marka waxaa waaye inaan bilka dalacnaa rabnaa. Saa bilka u aragno waxaa leenahay waa tanaa request for purchase order aan ku dhufanaynaa. Meeshana waxaa ka ogaanaya wixii bil sugaya. Kii hadaayo waa dalacnay waa fully billed 1,700 deyn ahaanaan loogu yeeshtay. Hadda waxaa nagu taagan 2,490 oo ah bilkeeda inaan dalacno. So waxaa leenahay banaanka soo bax jegta saar waxaa leenahay create bill. Bilkan dalac bill date-ka dooro. Meeshana muhiim waa iska fiiri hadhow iyo wax kale isku ahaan aniga account-ka waxay ii tahay inventory-ga alaabta account-ka iigu samaysan ay ii tahay. Meesha inventory aa ku aad hadday cost of goods sold ku tahay ka qaad. So waxaa dhahdaa confirm bilkan dalac. Haddii aad cash wax ku soo gadanaysid meeshaas ku dhufan kartaa. Cashiraanta cash markii wax lagu soo gadanayo waa gaari doonaa. Meesha waxaa ku dhufanay pay aa leedahay lacagta. Isla markaas waa lagaa bixin doonaa. Account payable ma geli doonto. Cash on hand iyo meesha ka jira Salaam Bank iyo account-ka ka jiraysa. So marka hadda soo fiirino trial balance-ga inuu isbedelay iyo in kale. Waxaa dhahdaa trial balance. Day wuxuu ahaa 131,000. So hadda waa 136,240. Meeshan waxaa ujeedaa inventory-ga hadday 8,000 ahay. Aaway inventory.
hadda wuxuu noqday 10,740 account payable-kina wuu batay. So marka cashirka maanta intaasaan kusoo gabagabeyneynaa. Haddii aad nala socotana try balance-gaada account-kaada waa inay yacni labadan waa inay balance ku ahaadaan. Then PDF ka dhig, soo degso, yacni comment-iga kusoo dir.